ولا ليال مركا نبينا عليه الصلاة والسلام marka uu nagu boorinayo qaraaba xariirinta oo la leeyahay qofka qaadica ah oo qaraabada jaro janna ilaahay ma gelayo la yadkhulu aljannata qaadi'un nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ayadii oo meel sida loo fadhiyo saxaabada ay dhameystirayeen ragii waaweynaa ay fadhiyaan ayuu yiri ilaah baan bari lahayn waan ducaysa lahayn qof qaraabadiisa jaray ama qof laba qof ee xumaata u dhaxayso ama nugu dhex jira maxaa yeelay dacwada iyo baryaha nala ka ajiibi maayo qof noocaas intuu nugu jiro nabigu sidaas uu yiri kaleey salaatu wasalaam markaas saxaabada kamida wuxuu yiri uu istaagay uu baxay wuxuu u tagay habaryartiis wuxuu yiri habaryar rasuulkii baa sidaale ilaah baa la bari laha baryaha ilaahay anigu aan baryayo la ajiibi maayo halka qaadici qaraabo goy meesha ku sugan yahay dacwo la kor yeeli maayo habar yari cafi soo ka soo qaatay qalbiga u soo furay asagiyo laab xaaran buu isku soo laabtay sidii lagu duceystay walaalayaal marka lagu leeyahay silah waxa weeyaan waa wax san isugu xiran silah marka lagu leeyahay waa gacantaada hada gacantaada waa sila way kula xiriirtaa qaraabaduna waa sidaas oo kale walaalayaal waxa laga dhaxlaa qaraabada oo la jaro iyo qalbiga cuqdad loogu qaado faqriga laga dhaxlaa umri degdega laga dhaxlaa nabigeena noo sheegay kaleey salaatu wasalaam qofkii jacal man habba qofkii jacal an yubsada lahu fi rizqi rizqigiisa in loo fidiyo waqtigiisana loo dibdhigo falyasil rahimahu ayuu nabigeenu yiri kaleey salaatu wasalaam qaraabadiisa xariiriyo maxaa walaalayaal qaraabadu waxay istaagaysaa maalinta qiyaamaha siraadka dhinaciisa ku istaagaysaa markaasay kugu dhagaysaa xageed ka maraysa cimrigaagana ama waa dhimanaysa ama waa lagu culimadu waxay yiraahdeen hatta lawhul mahfuudka waqtiga kugu qorna culimadana ay yiraahdeen qaraabada hadii aad jarto waa laga soo kansala waqtigaaga wala soo gabagabeeyna wala soo yareynaaba waxa la sheegaa laba nin oo boqoryaal ah oo laba malik ah oo midna qaraabadiisa oo aad u wanaaji jiray midna qaraabada aad u dhibi jiray qaraabada iyo dadka raciyada ah oo mas'uulka ka yahay oo shacabka ayuu dhibi jiray midna uu naxariisan jiray nabiga marka waxa loo waxyooda baa la yiri maligan boqorkan wanaagsan noloshiisa waxa ka dhiman 3 sano kan liitana umrigiisa waxa ka dhiman 30 sano nabigi waxa uu sheegay dadka wuxuu yiri kan wanaagsanna waqtigiisa 3 sano kaliya ka harsan kanna 30 sano ayaa waqtigiisa ka harsan way soo yimaadeen rabbiyo sida hana yeeli kan oo liito 30 sano haduu nasiihayo dhibaato ka bixi mayno rabbiyo ilaahay markay bariyeen baa waxa la yiri ki xuma waxa lagu wareejiyay 3 sano 3 sano kadib uu dhintay ki wanaagsana ee la amaanay qaraabada xariiriye qaraabada jaclaana waa loogu diray lawhul mahfuudka waxa ugu qornaa 3 sano kaliya umrigiisa inay ka dhimanta waa loogu soo diray 30 sano loo gaarsiiyay kana 30 sano kadib uu geeriyooday kana 3 sano kadib uu geeriyooday faqriga waxaan qalbiga lagu hayo oo waxba ku taraynin waxa la yiraahdaa qofka waxa dila la yiraahdaa wax ilaahay uu qoro ayuu xastaya maal ilaahay uu qoro xastaya awlaad ilaahay uu qoro xastaya ilmi ilaahay uu qoro xastaya martaba iyo sharaf qof gaaray ayuu xastaya asaga haduusan ilaahay u qorin xaquu ka keenaya maalkan hadaan lagu qorin xageed ka keenaysa oo cilmigan hadaan lagu qorin xageed ka keenaysa oo caafimaadkan axasaysa hadaan lagu qorin xageed ka keenaysa wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din bu ilaahina li hatamaninu haj'alana ilaahi subhanahu wa ta'ala fadliga barkiin barka kale oo ka fadilay was'alu Allah min fadli
إلهه أنا وحاسي إلهه علم إسي إلهه عبادة إسي سيدا إلهي كبر ولا ليال نبينا عليه الصلاة والسلام حديثك وأكته إلهي أولي أنا الرحمن وخلقت الرحم أنيق الرحمن بالليرة هذا رحمنا أنيق يا أبو رو قرابئه وشققت اسم من أسمائي مقعيدة إذا كمدة أيان كد الله عيون كجاحي ولا ليال وحا لو باهنية قلبيغان جرن وقلبيغا قيامها أو حكو تريني ومدك الدنيا كو كينا يا عمري دقدقة وكان كو كينا يا فقرقة وكان كو كينا يا جردة وكان كو كينا يا مصائب قلبي هذا النظيف قلبي هذا النظيف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالنا وحكو تري مايو ويلنا وحكو تري مايان قيامها وحكو تريو وقلب السليم هو آلة مال marka walaalayaal waxa loo baahan yahay in la og yahay dadku inay xuquuq ilaahay u dhaxdhiga xuquuqdaas hadaan la ilaalin oo faraha ay ka baxdo waxa faraha ka baxayo wax kasta maxaa yeelay ilaahay adiga hadaa ilaaliso markaasoo ku ilaalina ihfadillah yahfadka wa hadaadan ilaahay adigu aadan ilaalin oo amarkiisa aadan ilaalin oo wuxuu ilaahay reeba aadan ka harin oo wixii qalbigaada ku soo dhaca samayso oo naftaadu waxay ku fartaa samayso oo shaydaan ka tala qaadato xageed ka hormaraysa adduunyada goormeed ku hormaraysa aakhirada sa goormeed ku hormaraysa walaalka muslimka ah waxa loo baahan yahay in aad iyo aad diinka ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhigo